gayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay qaybsho haddaan gayga qayto ilaahay baa mahad leh ilaaha maanta inoo suuro geliyay inaynu dhagax dhigno dibudhiska wadada Burco qayb ka mid ah wadadaas oo noqon doonta wadooyinka cusub ee casriga ah ee asfal balaanka loo yaqaan inaynu insha Allah taala saari doono isla maantana dhagax dhigayno wadadaasi dhererkeedu wuxuu noqon doonaa 2 kiiloomitir iyo badh wadadaasi waxay ka qayb qaadan doontaa bilicda iyo quruxda iyo waliba isku socodka dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay tahay wada halbowle ah oo ay maanta taaganahay ilaahay waxaan ka baranaynaa inuu ilaahay nooga dhigo mid lagu baraaro insha Allah taala waxaana wadadan insha Allah inoo filin doontaa shirkadda amal ilaahay mahad leh waxaan filayaa hawshan aanu qabanayno wada laami ah oo ka bilaabanta sectionka yaaniga halka ugu sokaysa wadada xooluhu ka soo galaan markaan doonayno inaan taariifino wadada xooluhu ka soo galaan ilaa iyo 2 kiiloomitir iyo badh waa intii laga gaadho oo waxaanu anaguna aanu kolley ku yar deeqnay inaanu qaybaha dambe ee badhoolka ee kontaroolka wixii ka sokeeya inaanu raacino maadaama dawladdu wasaqudheedu ay hawsha qabatay annaguna aanu wixii badhoolay intaa saaka oo sabtiya bisha koowaad ee sanadka 2021 ay tahay 9 halkan waxaan u taaganahay inaanu dhagax dhigno mashruuc ka mid ah mashaariicdii dawladda hoose degmada Berbera ay qorshaysay sanadkan inay fuliso insha Allah hadii la yiraahdo mashruucani sida uu agaasime bursada sheegay waa wado dhererkeedu dhan tahay 2 kiiloomitir iyo badh waa wado asfal ah oo aanu dhigayno wadada uga baxda magaalada Berbera magaalada Burco oo runtii baahi aad u weyn loogu qabay in lagu sameeyo dib u dhisid iyo dayactir iyo daryeel intaba mashruucan wuxuu kow ka yahay sanadkan bishiisu ay kow ka tahay ay waliba maalintii 9aad ku jirto inaanu ibafur uga dhigno insha Allah hadii la yiraahdo sidii caadada noo ahayd sanad waliba markuu bilaabmo mashaariicdii u qorshaysnayd maamulka dawladda hoose degmada Berbera ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo hirgeliyo qorshayaashaanu samaynay ee aanu doonayno inaanu wax kaga qabanno baahiyaha dhammaan kala duwan waxaan maanta farxad noo ah in qorshaha 2021 ka 3 biloodkiisii ugu horeeyay mashaariicdii noo qorshaysnayd inaanu maanta dhagax dhigi doono oo ugu horeyso 2 kiiloomitir iyo badh ah baahida ugu adag ee maanta kontaroolka magaalada iyo inta u dhaxaysa magaalada waa mas'uuliyad saaran dawladda hoose degmada Berbera marka wadada maanta insha Allah waan dhagax dhigi doonaa sidaan ku naqaanay amalna sida ugu dhaqsaha badan bay u dhammaystiri doontaa waxaan jecelahay 2 qodob oo aan uga faa'iideysto qodobka koowaad waa halku dhigeeni ay degmada Berbera iska lahayd shaydaanku wax kasta oo wanaagsan uu ka soo horjeedaa cid kasta oo horumarka degmadan iyo gobolkan ka soo horjeeda anagu waxaan ku naarnaa wax qabadaan ku naarnaa marka wax qabadkayagu intaanu joogno maalin hadda ka dhacay ummadda wixii naloo yimaaday waanu qabanayna waanu wadaynaa maalin hadda ka dhacay xilkayagu qodobka labaadna waxaan leeyahay dadka reer Berbera anigu mahad celinaya waa inaynu ka duwanaanaa magaalooyinka dalka waa inaynu noqonaa kuwa horumarka iyo hayaanka horsocodka mar walba higsigoodu u fog yahay wadooyinkeena waxaa loo dhammaystiray adeegyadii ay lahaayeen inkastoo qaar badan dhiman yihiin waxaynu soo kordhinay sanadkii 2020 in aynu traffic signal boardkii aynu samayno oo gaariga qofka wada loo sheego leeyahay wadadaasna waa sax wadadaasna waa khalad halka speedka ku wad halka ku joog waxaan leenahay ha hogaansanaadaan oo ha ilaashadaan maadaama aynu gaar u leenahay sunnad gaar oo imika leenahay tahay waxa sample boardka ka qiimo badan sharciga ilaaliso oo aad qofka bini'aadamka aad naftiisa badbaadiso ilaaliso oo naftaada ilaaliso gaarigaaga ilaaliso kuwa badan oo caadaystay oo qaladka caadaystay waxa dawladda hoose iyo laanta traafikada ee Berbera tallaabada ka qaadi doonaan